isbitaalka dhimirka ee magaalada Hargeysa ayaa deeq bustayaal ay shirkadda Somcable iyo soo ku wareejiyeen iyadoo kaashanaysa ardayda kuliyadda arrimaha bulshada ee jaamacadda Golis waxaana la wareegay maamulka isbitaalka bustayaashan oo loogu talagalay dadka dhimirka wax ka qaba xilligan dhaxamaha oo baahi weyn ay u qabaan waxaana ugu horeyn ka hadlay madaxa xidhiidhka dadweynaha ee shirkadda iyo Somcable Mukhtaar Nuur Maxamed ayaa ka waramay in shirkaddu u taagan tahay taageeridda dadka jilicdasan iyo dadka xanuunsanaya deeqdana ay bixiyeen shirkadaha iyo Somcable marka runtii waa taariikh iyo taageero rajo cusub ku abuuraysa bulshaweynteena gaar ahaan inta jilicsan leh oo waxay dareemayaan inaynan ilowsanayn markasta oo qalbiga ku hayno ayay dareemayaan inteena jilicsan leh waan ugu hambalyeeynaa ardayda jaamacadda iyo maamulka jaamacaddaba anagu company ahaan intani waa deeqdeedii inta halkan taala waa deeqdeedii cid kale oo la wadaagaysa ma jirto anaga ugu deeqnay bustayaashan dhakhtarka laakiin iyagu waxay mahad gaar ah ku leeyihiin inay arintan soo gaarsiiyeen oo wataan ugu mahadnaqayeen lahaay marka aqoonteeni inay noqotay wax bulshada u adeegaya wax aad loogu farxo runtii waxaan mar labaad u ducaynaynaa runtii ilaahayna uga baryaynaa inuu maalkiisa barakeeyo mulkiilaha company-ga Somcable Xaaji Maxamed oo Saciid Geedi ahna mulkiilaha kambaniyada MSG Group Xuseen Axmed Xaashi oo ah agaasimaha maamulka iyo lacagta isbitaalka guud ee magaalada Hargeysa ayaa isna dhankiisa shirkadda iyo Somcable uga mahadnaqay bustayaashani ay dadka xanuunsanaya ay soo gaarsiiyeen sidoo kalena waxa uu fariin u diray ardayda wax ka dhigata dalka Soomaaliland iyo gaar ahaan shacabkeeda uuna sheegay inay baahi weyn u qabaan dadka dhimirka ka xanuunsanaya meeshan joognaana waa dadka ugu jilicsan dadka isbitaalka jooga si kasta qofka xanuunsada haduu xiskiisa qabo ismaamulayn qofkan wuxuu waay halkii ugu qaalsanayn mana noola mana dhiman reerahoodii imika dadkaasi uma tirsana qofka isbitaalka lagu tirsay imika qof quraato saaka loo yimid ma jirto cuntadooda shaqadooda meediskooda dharkooda waxa dhan isbitaalka qaba dadka kale waa dharka wada joogo dhan ehelkoodii baa wax kasta quraacda iyo qadada iyo raashinka u keenay waa dad tirsan xanuunku doonaha qabo laakiin dadkan cidna uma tirsana laakiin si jaaniska ka banaan maadaama mas'uuliyiintii meesha nahay ayaan idin sheegaynaa shaqaalaha noo joogayna tababartaan aqoonta soo gaarsiisaan dadka bukayna u timaadaan la sheekaysataan ka waraysiisaan garanaysan waxaan ka hadlayo waxyaabahaas oo dhan baa leedii ka baahan yahay geestoodana waxaa si wada jir ah uga hadlay dhiinka kuliyadda arrimaha bulshada ee jaamacadda Golis Maxamed Cismaan iyo ardaydii ka soo shaqaysay oo afkooga ku hadlayay Mustafa deeqdani ay ugu talagaleen dadkani ay ugu tageen shirkadaha waaweyn ee Somcable iyo ayna ka ajiibeen deeqdaasina ay soo bixiyeen sida uu sheegay agaasimuhu in waanu qaadanaynaa talada iyo tusaalaha mana noqon doonto markii uu horeysaan u nimaadno ee aan ku soo noqon waxaan u asaan gareyn doonaa inaanu tababar siin doono shaqaalaha waxaan u ballan qaadaynaa ka jaamacad ahaan inaanu siin doono tababar shaqaalaha qaybta dhimirka ka shaqeeya ka arday ahaanna waxaan u ballan qaadaynaa inaanu u soo diri doono arday isla markaana aan u soo xullo oo wiigii hal mar counseling siin doona ka neefin doona la sheekaysan doona laakiin tan special waxa si gaar ah ugu amaanan oo maanteeda lagu wadaagayn shirkadda Somcable waxa jira dad kale iyaduna hawl kale iyadana imika fulinayno oo iyaguna taay naga caawiyay